لبس أنا نقول لها ما أنا فرحين والله أنت فرحة ويرتها واحد إيسا قرتان بدن كنا سلمي ونن عوري باتو ونن تعيشها ما تعلن نن عوري نميه ما فهمتي نلاش waxaan islahaa bal nina nolosha aad imika ku jirto kalinimada ah hooyo la'aanta dayaca faraha badan leh yaa inaad ka baxdo oo aad guri xalaal ah hada aad ku tagto aad maanta maaragtay ku heshid farxad kii markaan samaystay waa iga sii daranta maaha micnaheedu taa inaan nin xun iqabo ma fahantay wallahi nin wanaagsan bay qaba oo maxay ahtoore 10 kun oo shilin haduu helo aan dhinac igala dhaafin mar walba aniga imika waxa la igu dhibaateeya oo hays igu noqotay oo reerkiin hadan colaad baa jirta sax xumaan baa timi inaan ka shaqo waayay dad baa u soo hanjabay anigi waxaan noqday laba dhinac baan ka karay fahanteen marka waxa timaaday in la yiraahdo inankii أراد رير كنيا أنا جو حلي يقول هذا أراد رير كنيا رير ملهيد مياه وهكذا أيدي أنا ما أنت وين سيستاي أنا أبو عروس أيدي وميل كل جيت شوكته أولو بيلو أي ما تدخلين عريس كين كذا كسي سارة السلام عليكم أصحابتي ده وانا دي سلامي ما أنت هذا المكريو الحمد لله هرتا وان يرى مرقيسانهاي مرقو iyo farxadna way jirtaa marna wad murugoonaysa marna wad farxaysaa ma fahamtay ana imika iska fadhiyo oo iska subxaanaleysanaya ma fahamtay marka xaaladu kugu adeegayeen ilaahay baa loo noqdaa ilaahay baa la bariyaa baa waxaan xasuustay hade inaan horta koow noloshaada hadaad weyntahay iyo hadaad yartahay aad hooyo ka maarmaynin anigu ilaa yaraanteedii ilaa iyo maalinka inta leekahay walaa hooyo walaa aabo walaa eedo walaa adeer naxariis waalidnimo oo dhan horta ma aanan arag sax gartay maaha waxa jirta marxalado igu adag nolosha oo aan dhaafi kari waayo iyo qaar aan farxad iyo qosol ku dhaafay ma fahantay hada muhiim ma haynan anigu waxyaabaha noloshayda ku saabsan idiga sheekeeyo laakiin marmarka qaar aad weydo qof aad ku nafisto aad la sheekaysato waxa muhiim ah kun qof ku daawanaya waayo waxyaabaha qaar aan adiga ka maqan bay kugu soo kordhinaya waxa jirta aniga qis ahaantayda hablaha khayrka ee markan inanta ahaa oo aan maxay hitolay asxaabtayda la socday hablaha khayrka si ay u faraxsan yihiin amba nolosha ay heerka ay kaga jiraan anu marnaba maan heli jirin maxay hitolay yar iyo weyn waan ka soconayo de waxaan ahaa qof gooni ah mar walba de waxaanan haysan maaragtay garab buuxa ayay quraan hayst eedii way iska xanuunsanaysaa way iska tabacaan ma fahantay inaan hadda ooyo muhiim maaha qofna wax uga ma baahnay ma fahantay laakiin waxa muhiim ah inaan noloshayda maaragtay waxyaabahayga qaar aan qarin kari waayo inaan sheego khayrkay waxyaabahay haystaan marmarka qaar ma aanan haysanin haddii dhar noqoto haddii farxad noqoto haddaan gabadh ifan islayno markaan yaraha macal hooyadeed bay isku kayso iisoo raaci jirtay ana ayadii bas bay korsatay ayadii waxay iska ahayd qof xanuunsan sorry adeerayaashay aniga adeeradii way xanuunsanayeen waxay iska ahaayeen bukaan imka ilaahay naxariisto way wada dhinteen adeer iima noola marka waxay noqotay qof bukaan badan la soo daristay oo aan anigu maanta de waxaan u baahanahay baahidayda dabooli kare maanta markaan guursadayna noloshayda waxaad tirahdaan mar walba waxaad ii soo qortaan ninkaad ku naxsan tahay xaq Allahu akbar oo isku soo noqonayna ma sugi karaya inta eedaanku uu dhamaanayo salaada raba inaan tukado waxaad ii soo qortaan badankiina salmay ونن عوري باتو ونن تعيشها ما تعلن نن عوري نميه ما فهمتي
nolosha waxaan islahaa bal nina nolosha aad iminka ku jirtid kelinimada ah hooyo la-aanta dayaca faraha badan leh yaa inaad ka baxdo oo aad guri xalaal ah aad ku tagto aad maanta maaragtay ku heshid farxad kii markaan samaystay waaba iga sii daranta 2 sano guri lahaa maalin ma ana farxin wallahi intaan farxay way yartahay maaha micnaheedu taa inaan nin xun iqabo ma fahanti wallahi nin wanaagsan bay qaba oo maxay ahtaray 10 kun oo shilin haduu helo aan dhinac igala dhaafin ma fahanti waxaa jirta inaan yar weeye oo wadankan si joogin colaad bay imika abuurmatay cunsurnimo meel walba qabyaalad baa taala ma fahanti awalba wadanku dee wadanka walba shaqayo muu lahayn maaragtay dee wax wanaagsan burco iska wada garanaysaa dhalinyarta waa ku bilaacama hase ahaatee waxaa jirta mar walba aniga horta baabka inaan digala hadlo horta maahaba shaqadiya waxa waana la helaa waana la waayaa bilaaadana baahidaada lama dareensiiyo wallaahi oo bilaahi oo talaynana banidi sheegana intii garanaysaa habeen inaan dhabankayga ka arag baahi iyo daryeel daro iyo murugo iyo ma fahanti hooyaday waa xaadir aniga ma iisan dhiman caruur kale haysata ma fahanti mana ilaahay bay igu oga waalid caasi wiilkayga allah hooyaday kelmada ay ka naxdo kuma aanan oran aabahayna waxaan lagu caroonin waxba ma haysto aabahay wuxuu maanta isiiyo ma haysto adeerana mali oo kuwaas bay dhintay waa ayadii qura eedooyin waan leeyahay ma fahanti laakiin toodiyo tii gurigooda iyo tii ubadkooda bas bay ku filnaadeen aniga igu ma isan filnaanin ma garatay marka waxa taala mar walba aniga imka waxa la igu dhibaateeya oo hays igu noqotay oo reerkiin hadan colaad baa jirta sax xumaan baa timi inanka shaqo uu waayay dad baa u soo hanjabay aniga waxaan noqday laba dhinac baan ka kalay ma fahanteen marka waxa timaaday in la yiraahdo inankii orado reerkiina aniga waxa la igu yiraahdaa orado reerkiina reer milhid miya waa kasma ayday anigu maanta waan isitay ana abu culus ma ayday oo meel kaligeed joogta oo lagu biilo ayaan maanta u tagaayo culayskayga kala dhakada ka sii saara halka maray aragto aniga wasiisto oo aan ilaahay meel ma haystaan ku wayna haysa ma fahanti nasiibku marmarka qaar kuma saacidayo waxa jirta marmarka qaar xaaladaha aadka u adag aanad ka bixi karin laakiin bilaadan ilinta hadal ma sugan oogay aniga nacab fara badan inaan leeyahay oo igu farxay laakiin ilaa intaan qosla farxad beena ilaa intaan muujiya ma farxsani waxa taala ilaahay baan imka alxamdulillah rabbil caalamiin أنا وحنا قف إلهي آمسان أدي دباتوتو إيه هذا أنا دباتون بق هذا كهر ميدان أرجعني بقوي ولا نرش يتكشكني لك والله بالله تلا يرانتي دي إلا ما تنرش أنك سكري ناقة أنا جو كلا أميسان درو عادتين حبين إنا يرو إلا ساعتان بقف عن سلسة عن إيجامو أرك حمار أبا أنا مرقيسان marka asxaabi bilis weyn bariga culays fara badan man dareemaya dhinac walba dhinac maskaxiya had iisoo duceey inuu ilaahay culayskayga kor qaado oo ii fududeeyo anuu adduun idii weydiisan maayo id oran maayo maanta lacag ii siiyay waan baahanay ururiya laakiin duco wax walba waxa ka muhiimsan ducada ilaahay